like iyo subscribe si aad u hesho video kasta oo cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasha ku xidhan kanaalkeenan ma ogtahay waxaan maanta ku soo qaadanaynaa xog muhiim ah oo ku saabsan dalka Senegal ee ku yaala qaaradda Afrika. Sida rasmiga waxa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Senegal waa dawlad ka mid ah dawladaha ku yaala galbeedka Afrika. luqadda dalkaasi lagaga hadlaa waa Faransiis waxaana caasimadda dalka lagu magacaabaa Dakar. badka dhulka dalkaas ayaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 196,000 oo kilomitir iskuweera waxaana tirada dadka dalkaasi lagu qiyaasaa ku dhawaad 15 milyan oo qof. tirada da'da dhexdhexaadka ee dalkaas ayaa iyaduna lagu qiyaasaa 66 jir halka gabar wali oo dalkaasi ay dhali karto 5 caruur. Senegal waxay ka mid tahay dawladaha aadka u yar ee dawlad kale ku dhex taal waana dawladda Gambia. haddaba sanadku markuu ahaa 1982 dawladda Senegal waxay la midooday dalka Gambia iyagoona la magac baxay magaca Senegambia. wadankani Senegal wuxuu ka mid yahay dawladaha Afrikaanka ee aan afgambi siyaasadeed ka dhicin taariikhda inta la ogyahay. haddaba markaynu taariikhda dib u noqono wadankan ayaa waxa uu caan ku ahaa 3 shay waxayna kala ahaayeen dhoofinta addoomaha, foolka maroodiga iyo dahabka waxayna ahaayeen arrimo muhiim ah waqtigaas. dalkani ayaa waxa uu ku tiirsan yahay dalxiiska waxaana uu yahay mid ka mid ah dawladaha Afrikaanka kuwa ugu fiican dhanka dalxiiska isaga oo wadankaasi uu yahay wadan aad u ammaan badan. waxa la helaa 7 meelood oo caan ku yahay dalxiiska wadankani waxaana ka mid ah wareegga dhagxaanta kaasoo ka kooban 1000 qaybood. gudaha wadankaasi waxa laga wadaa mashruuc ka mid ah kuwa ugu la yaabka badan dunida kaasoo ah mid waxtar u leh deegaanka waana jasiirad gamcaha lagu sameeyay. dhaqamada caanka ee uu leeyahay wadanka Senegal waxa ka mid ah in dadku xoolo dhaqatadii ay geliyaan arigooda badda maalin kasta oo axada iyaga oo arka inuu yahay nooc daryeela. Senegal waxa laga helaa noocyo kala duwan oo duurjooga sida maroodiga iyo xaaska iyo libaaxa. diinta ugu weyn ee ay haystaan dadka dalkaasi waa Islaam waxaana lagu qiyaasaa 94% tirada dadka Islaamka ee dalkaasi.